roob lagu qabowsaday ayaa habeennimadii xalay ka daayay xarunta gobolka saaxil ee Berbera magaaladana waxaa si weyn looga dareemay roobkaasi oo muddo saacada hayay biyaha roobkaasi ka soo rogmaday iyo daadadka ayaa marayay jidadka iyo dariiqyada waaweyn ee Berbera saakana magaaladu waxay ku waabarisatay jawi roobaad oo ay xareedu wadan tahay maamulka dawladda hoose ee Berbera ayaa waday dadaalo ay biyaha ku dhaafinayaan goobaha ay fadhiistaan ee bartamaha magaalada duqa degmada Berbera iyo agaasimayaasha dawladda hoose ayaan kula kulanay goobo kala duwan oo ay la tacaalayaan biyo fadhiya meelo suuqa alxamdulillah ilaahay baan horta ku mahad celinaa nimcadiisa barwaaqadiisa waynu baahnayn ilaahay baan soo asturay ilaahay baa gacantiisa lagu dhirgaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa mar kastaba nimcadu markay daado kulay lagama waayo hawl nimco kastaba nusqaanteeda leedahay marka ilaahay wax dhibaato ah dadkii iyo degaankii iyo dhismayaasha waxba kama soo noqonin nimcada magaalada dhex jiifta mooyaane eriyadani waa eriyada magaalada ugu hooseysa bariga hore daaroole ayaa iyo barwaaqa biyo aad u fadhiisan jiray imikana eriyadan ay ku harsan yihiin sababtaan wadooyinkan u hagaajin weynu lisweynaa lambar 1 waxa weeyaan in horta drainage la sameeyo mar walba drainage ayaa ka qiimo badan wadada marka drainage baa noo qorshaysan sanadkan waxaa noo qorshaysan in drainage-kiisii oo dhammaystiran iskuweerkan oo dhan ilaa saldhigga hoostiisa ilaa Omar ilaa iyo Marso inta drainage loo sameeyo wado quruxdana laga sameeyo sidan waa temporary oo markastoo roobdo waxaan leenahay qaybta arrimaha bulshada iyo mishiinada emergency-ga dhamaanteed ilaa maayar ilaa shaqaalaha hoose dhamaanteed waxaan ku dhaqaaqnaa ilaa dhibic biyo magaalada ku hadhay marka biyihii wada arkaysan waa la saarayaa ilaa 6 meelood bay ka socotaa oo shaqadana ka socotaa saacad gudaheed baa lagu qalajinaya insha Allah gudoomiye ma jiraan wax ilaa imika qayladhaan ama dhibaato oo la idin soo sheegay maadaama mararka qaar waqtiyadan kale marka roobka aysan Berbera uga daan laga caban jiray guryaha jilicsan ee ku yaala xaafadaha barwaaqo iyo daaroole muxtaaro halkaan ku rasaxay horta alxamdulillah warta roob duufaan laho waxyaalo keenay ma jiro guryaha cabsidoodu imika saacadaha soo socday bilaabmaysaa biyaha markay cabaan ay dhergaan ay qoraxda ku dhacdo ayuu kala kacaa markaas qoriga ma faaxa ama jaba ama nafsi sameeya markaas saacadaha dambe ogaanina ilaahay wax ka baryana waxyeelay inuu keenin dadkana ka wacyi gelinay waana u sheegnay guryaha jilicsan imkan ka baxaan hore ka baxa baan nidhi waa in nafta ka qiimo badan qof baahidan haysa in naftiisa kala baxaya muhiim marka ilaa hadda ma hayno wax dhibaato ah halkan dabadayda waxa ah drainage-ka ugu weyn magaalada drainage-kaasi waa drainage-ka 75% ama 80 wax ku dhow biyaha magaalada soo gala dhinacay doonaan baha ka soo galaane ka saara magaalada weeyaan xalay toole markii roobku daay runtii goobtan aan ku sugnayn badda ayuu ku daraa badda marka xagga hore ayaan ka xidhnaa si aanay badda u soo gelin marka aanay roob jirin marka goob marka uu roobku da'o ayaan furnaa kana marka ka saara drainage-kana 70% in ka badan ka saara maayarkeeda dhammaan agaasimayaasha dawladda hoose ilaa xalay markuu roobku bilaabmay si weyn bay uga hawlgaleen aad iyo aadna waan ugu ammaanayaa shaqada ay ka qabteen magaaladii shaqadoodii u foojigan yihiin roobkan ayaa si wacan u helay Berbera iyo deegaanada kaagdhow dadkuna saaka waxay ku waabaristeen jawi roobaad iyo xareed oo meel walba oo dhan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera